بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم halka ay la socotaan waa Musamir official ku soo dhawaada maanta qiso reer Soomaali oo Norway degan qabsatay Soomaaligii jimcaha faqiirka ahaa sabtidana taajirka noqday adduunya Maxamed Jaamac waa aabaha qoyska waxay ku nool yihiin wadanka Norway isaga iyo caruurtiisa iyo xaaskiisa Maxamed oo degan guri uu leeyahay kamuunka dowladda hoose ee degmada toyn ee caasimada Oslo ayaa bishii ugu dambeysay dhaqaalaha soo gala dhaafay intii ay ku heshiiyeen kamuunka Maxamed iyo kamuunka ayaa ku heshiiyay haddii mushaarkiisa uu dhaafo 15,000 koron oo u dhiganta $1,500 bishii in qoyskiisa raadsado guri barayfad ah kuwa shacabka ee kirada qaaliga ah kana baxo guriga kamuunka ee kirada jaban waa sida kamuunka sheegay bishan ayaa Maxamed waxaa la soo xiriiray maamulka kamuunka waxaana loo sheegay in uu gaaray dhaqaalihii lagu heshiiyay sida awgeedna uu baneeyo guriga intaa kadib Maxamed ayaa kamuunkii u qoray waraaq cabasho ah oo uu ku dalbanaya in lagu eego il naxariis haddana ay tahay xilli corona oo uuna lahayn guri kira ah sidoo kalena caruur yaryar uu wato qabow daranna uu dhacaya kamuunkii oo aan wada tashi ka yeelin kiiska Maxamed sidoo kalena aan u fiirinin kiis ayaa maamulka qaybta guryaha qaatay go'aan ah in Maxamed loo adeegsado xoog loona diro askar si guriga looga deeriyo qoyska askarka ayaa albaabka ka gashay qoyskii oo xilli qabow badan dhacayo ka soo baxa guriga iyo maxaa dhacay buuq badan kadib askartii waxay ku adkeeyeen in la soo siiyo amar guriga ay ka xidhayaan caruurtii oo qaar hurdayaan ayaa loo soo kiciyay waxaana loo saaray barafkii gurigiina waa laga xidhay qoyskii ayaa talo ku cadaatay ciidanka qaar ka mid ah ayaa hooyada iyo aabaha qoyska ka codsanaya in u raaci karaan guriga la seexiyo saqaamiinta dariiqyada laga qaado qoyska ayaana diiday dalabka oo kaga hadhay halkii intaa kadib waxaa soo baxay deriska oo ka warhelay masiibada caruurta dibadda keentay xilligana qabow ah gabar deriska ah oo cadaan Norwegian ah ayaana Facebook ku qortay qisada ku dhacday qoyska waxaana sheegareeyay 10,000 oo qof sheekadii ayaa baraha bulshada qabsatay waxayna dib ugu soo laabatay maamulkii oo la kulmay cambaareyn xoogan sheekadii ayaana gaadhay heer maamulka laga dalbado iscasili degdeg ah gabadhii sheekadii qortay ayaa shacabkii Norway ka dalbatay in qoyska loo aruuriyo 50,000 oo koron taas oo ah dabijiga guriga kiraysan doonaan laakiin lacagtii ayaa saacad wax ka yar kadib dhaaftay halkii gool ku ahaa waxayna sheegtay in ku qasban tahay inay u bedesho ilaa 100,000 oo ah korona ah 2 saac kadib ayay haddana dhaaftay halkii intaa kadib gabadhii ayaa qaadatay go'aan kale oo ah in ciwaanka sheekada loo bedelo guri ha loo iibsho markay aragtay xawliga lacagta ku socoto waxayna goolka lacagta ka dhigatay 1 milyan 24 saac kadib Maxamed lacagtiisa waxay gaadhay 1 milyan isagoo jimcihii faqiir ahaa ayuuna sabtidii taajir noqday hadda Maxamed Jaamac iyo Aamina Suleymaan waxay raadinayaan guri weyn oo iib ah
guri weyn oo iib ah. Kamuunkana waxay rabaan inay guriga lasoo iibiyaan si ay xaalka qayb ugu noqdaan, isagana jeediyaan indhaha shacabka soo doortay. Waa halkii laga odhan jiray wax aad shar mooday ayaaba kheyr kugu noqdaa. Dowladda dhexe ayaa shaacisay in aan la canshuuri doonin in lacagta Maxamed iyo Aamino Suleymaan. Marka asxaabay, ninkii maanta taajir ah ninkii maanta faqiir ah birta waa taajir. Ma fahanteen? insha allahu tacaala sheekada halkaasay noogu dhigan tahay. sheekadana waa sheeko dhab ah oo dhacday, oo Norway ka dhacday. marka waxayna ku dhacday reer Soomaali oo qoys Soomaali ah oo jimcihiina faqiir ahaayeen, sabtidina taajir noqdeen. marka wakaas sheekadeena halkaasay noogu egtahay insha allahu tacaala. janaalkayga haddaad daawato subscribe, like, comment